سيتا قالي في عم ما شاء الله سيتا هذيك وفي عنا ما ولقوا أنت كبحد وانجو ولا هذا اللي جواي أنا جوا جي مو تمان تمان أنت تاعي ماي سمار سأفرح سنة يسأل له بسنة ماي ودك الهديد كذي سعره بينا كسيو حتى هاي أو كجعل هاي ما أنت ما أنت جعلك مركا أنا جينا واحد كدرين سينا جعلك هنا كجعل هاي يقدم مركا فلاور كاس ما سنتهاي ما أنت إن شاء الله هدوتي أوتنا كوجينا أوكي صوت ديار جرو مركز وسرعنا هاي ديارنا أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيتا ولالكي الحمد لله في عنا حالة أنكو في عنها إن شاء الله نيو وحان أركي أدينكو برنامج أبحي وحسكو هديين إنسان وحان لنا يا أرنتاني أرن كوفي عن ما همركي لفيري حق الدينيا وايو سببتو أنا وحاني وحا لوغا دايسانا دينتينا معها وحان هيداد إسلاما انت بدنا أنا وحان دينتك قد دايسانا نبي محمد عليه الصلاة والسلام يسيدو إلهي نيري سمايا إي صحابة ديسي waxaanina waa arrin gaala laga soo gaaray soo xagarateen maaha marka inta badan waxay ka dhacdaa wadamada aan qeyru islaamka ama muslimiinta ahayn marka ubaxyahani waxaan la isku hadiyeynayna ma ahan hadiga nabiga kaleey salaatu salaam mana ahan wax ayad ay ku soo aroortay bal way xarimeen oo way diideen marka waxaan rajaynaynaa insha Allah taala in aad maaragtay to ka waantowdaan oo maadaama aad tihiin dad muslimiin oo Soomaali ah hawlahana ay tahay hawlo uun just dhalinyaranimo idinku qaaday waxaan rajaynaynaa inaad maaragtay to iska deysaan way arintan ayada ama falantiinkan waxa laga soo gaaray ama ay ka soo bilaabatay markeedii horeba wadamadan nimanka la yiraahdo maxaa to Talyaaniga iyo Greek iyo wadamadan loo yaqaan gaalada oo islaamka ahayn marka waa taariikh aad u dheer oo maaragtay to u baahan in dadka muslimiinta ana looga digo marka waxaan idin rajaynaynaa insha Allah taala bal inaan iska ilaalisan hawsha ayada ah aad muxuu ahayd ku bedelataan in haddaad si xalaal isku doonaysaan reerihiini iyo dadkiina intaad isku tagtaan inaad si xalaal isku guursataan aan waxaan la isku hadiyeenaya muxuu ahayd guurka ka horeeyaba aydan isku mashquulin baan rajaynaynaa insha Allah taala maadaama aan dad muslimiin oo walaal ah marka sidaasan gabadheena iyo wiilkeena idinkula talinayna waqti walba idinkula waaninayna insha Allah taala waxaan idinka rajaynaynaa waqti walba inaad mooragta arinta ayada ah aad ka waantoobi doontaan si had sanadkan haday dhacdo idin sanadka dambe idin ugu kabsoomin maadaama adinko idin ogeyn waxaan ay ahayd wax leedinku macnaha maaragtay to qalday maadaama dhalinyaro aad waxaan kala idinku waanin lahaa bal inaad cilmiga barataan oo raadisaan bal waxan meesha ka soo bilowdeen iyo ninkii keenay iyo meeshu ka bilowday wax walbana waxa fiican markeeda hore in la iska fiiriyo intaanan la qaadanin marka waxaan idin rajaynayaa khayr badan insha Allah taala waxaana idin soo qaaday oo isoo leexiyay maadaama aan ahay dad walaalo ah oo islaam ah inaan isku maaragtay dardaarano wixii wanaaga wixii xumaata ahna si wada jirna aan uga reebtoonaano taas daraadeed waa Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankeena noogu amaanay azza wa jalla kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar marka intaas aan jeclaysay in idin soo sheego maadaama adinko waxyaabo isku hadiyanay aan idin arkay intaas ay soo leexisay walaalayaal marka waxaan idin rajaynayaa khayr badan insha Allah سامي ولا الكي سامي ولا شيء الشيخ وحوشيga waa runtii marka waxa sameeyna insha Allah arintan waa joojinayna falaarka isoo celiya mar insha Allah falaarka waxa ku siin doonaa habeenka koowaad ku guursada insha Allah marka akaasa hadana ascaafin insha Allah هاي ديار هاي maalin wanaagsan assalaamu alaykum